goob walba degmo walba xaafad walba banaanbixi waa berrito waa 7 subaxnimo waxaan rabnaa in la isku soo baxo oo qof walba uu xuquuqdiisa raadsado waddankan xoog aan wasta dhalinyarada Soomaaliyeed xoog aan wasta imisa xataa maqan imisa la dilaa oo maalin wada arkayso hooyo Soomaaliyeed oo xaamil guriga inta laga barakiciyay lagu dilay xitaa wiilkeeda xitaa qudin banaanbax berri keliya ah ma ahan waa siduu u bilowday inta qof walba xuquuqdiisa uu helayo waa soconayaa banaanbaxu ma joogsanayo ilaa dadka dhibanayaasha ah ay xuquuqdooda helaan ilaa dalkan dawladnimadiisa ay saldhiganayso lana helayo dariiq sax ah oo dawladnimada dalkan lagu hago lagana heshiiyo sida doorasho loo geli doono mustaqbalka banaanbax waa banaanbax nabadeed waa dastuuri waa dimuqraadiyad waxaa lagu cabiraa fikirka qofka muwaadinka ah dadka banaanbaxayaasha oo berri soo baxayana waxaan ugu baaqaynaa waa banaanbax nabadeed oo xaqiina ku raadsanaysaan waxaan rabnaa keliya in la soo baxo oo muwaadinku uu cabiro dareenkiisa iyo fikirkiisa ku aadan xaqdarrada iyo cadaalad darrada waxaan rabaa halka inaan baaq u wadiro ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed dawladdu waqtigeedu 5 maalmood ay ka dhiman tahay yaani idiin soo dirin inaad dadka gumaadaan waxaa laydin tababaray inaad ahaataan astaanta qaranka laydinma soo dirin barakicin iyo caburin banaanbuxu wuxuu ka dhacayaa degmo walba oo magaalada Muqdisho ka mid ah waa berri iyo xuquuqda muwaadinka